dowladda Iran la taliya ka mid ah la taliyaasha sarsare ee wadaadka ugu sarreeya arrimaha diinta ee waddankaasi Iran iyo talada mid ka mid ah taliyaashiisa ayaa markii ugu horeysay hadal dhulgariira oo buuq aad u xooggan ka dhex dhaliyay oo diblomaasiyadeed Lubnaan xukuumadda ka jirtay fadhiidka ay gacan kurimiska ah ee wadamada reer galbeedku ay samaysteen hogaamiyay leeyahay Michael Aoun oo isagu aan Kristaano oo markaasi daba dhilif ah ayaa waxa ay ka soo yeedhay mid ka mid ah dadka la taliya wadaadka ugu sarreeya dalka Iran ninka la taliyaha arrimaha siyaasadda cali ayatollah cali khamani oo la yiraahdo magaciisa la yiraahdo markaasi cali akbar falayati ayaa waxa uu sheegay dadka reer Lubnaan arrintan waxa rabaa idinku inaad qiimaysaan bal يعني وارين لياب لو هذا nimankan horta yani farisiintu waxay la yaab ku leeyihiin xagga afka ama aftaamada lagu ma gaaro sidaad raadeed adar dad aragto Twitter ka dad eegto ama X ka dad eegto Carabtii iyo Iiraaniyiintii yani caalam islaami oo dhan arrinta faraqeeyay sababtoo ah arrinta waxay noqotay arrin ay isku jawaabeen labadii dawlad ba isku jawaabay wasiirada arrimaha dibadda isku jawaabay waa idin soo wada sheeko aad u qurux badan bay noqotay yani dood aad u fiican bay dhalisay ilbaxnimo badan way soo muuqataa caalam islaami runtii way diilay arrintaas samaysa sababtoo ah arrinta ninkan uu soo bandhigay hadalka ninkan uu soo bandhigay maxay dhigtay Soomaaliya qacba ka yeedhay hebel baa qac ka yeedhay ciyaalka yar baan ka maqlaa fiiri dadka aan Soomaaliga aad u aqoon baa ka yeedhay macnaha waa dhirbaaxa lagu dhuftay way moogta qofkii waa dhirbaaxa wuxuu yidhi ninkan waa la taliyaha waa ragga wadaadada kaadiriinta waaweyn faliyati wuxuu yidhi cuntada dhuuniga la cuno sida rootida iyo yaariide breadka waa rootida iyo biyaha waa labada shay waliba biyuhu waa shay laga maarmi karo Soomaaliya iyo rootida ama dhuuniga la cuno iyo biyaha la cabo waxa idinka muhiimsan ayuu yidhi dadkiin reer Lubnaan in xisbillah ay sii jirto bug arrinta markuu yidhi waxay noqotay arrin gabigeeduba daba male noqotay bay noqotay inta kaliya sidaad raadeed wuxuu yidhi waa muhiim ayuu yidhi inaad taa qaata inaad taa qaata intaas horta marka hore ciwaanka ka dhiga dabeedna wuxuu yidhi wuxuu doonay marka inuu fasiro ama faahfaahin ku qoro wuxuu yidhi qiyaas nidaamka sanooniyadda buu yidhi wuxuu doonayaa ama ay go'aansadeen yani ku wilgoonayaan ku seexdaan ku soo toosaan inay dhammaantiin idin dilaan dhulkiinana qaataan kadibna ay idin ka dhigan kuwa idin baabi'iyey marka khatarta ugu weyn ee idin haysataa waxa weeye ayuu yidhi waa in xamaas inaad xisbillah alumisaan inaad xisbillah alumisaan iyo inaad biyo iyo rooti weydaan gebi ahaanba waxaa idin fiican ayuu yidhi inaad rootida biyuhooda ka maqnaadaan